إلا إمك واحد سجى نتيجة أربعة هيد komishanka doorashooyinka Soomaaliland ku dhawaaqi lahaa shacabkii way taageeyeen oo waxay sugayeen natiijadaasi aawana wala filaya warbixin nasiib بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم horta marka hore waxaan idin sheegayaa wax dhibaato la yara haba yaraatay jirta inayna jirin shaqaduna sidii loogu talagalay in loo wado komishanka iyo xisaabtuna isla ogolyiin u socoto waan horena waan idinku sheegay waxaan tiramahay waxa weeyaan sanduuq walba D1/1 oo golaha deegaanka iyo D1/2 oo golaha wakiilada ah ayuunbaa sanduuqa envelope-ka inta la furo la eegaya natiijada ugu qoran qof kastoo musharaxa iyo totalka xisbi walba helay dib baa loo eegaya qof xisbi xisaabtuna way qoranaysaa koobigeeda qaadanaysaa hawshu halkii unbay ka socotaa waayo Hargeysa waad garanaysaa tiradeeda intay tahay dee dalka intiisa kale ku laba ayay dee ugu yaraan kala barkeed iyo ka badan tahay waa more than 50 plus marka waxa weeyaan sidoo baa lagu jira wanaga u taagan wax cilada iyo wax cudura iyo wax dhibaato iyo wax shakiya iyo wax muran ka taagan midna ma jirto faris musbay u socotaa sidoo loogu talagalay marka waxa weeyaan imika waxaanu ku tala jirnay bal inaanu ka gaarsiin karno inay dhamaadaan golihii deegaanku caawa ay hor dhamaadaan marka waxa xarsanaa waa dhowr iyo 40 sanduuq oo la bilaabay 40 minutes ka hor kolkii la casheeyay ayaa la bilaabay marka dhowr iyo 50 sanduuq ayaa la bilaabay daatadiina waxa xisaabta loogu yeeray komishanka ugu yeeray si dhawaaqa intaan la dhawaaqin xisbi walba wixii uu helay ee uu saxeexay markii hore inuu shaabadaynay in dib inta u wada eegtaan la isla fahmo dabeetana finalkii ay kombiyuutarradooda ku gurtaan dabeetana totalka la isla yeeriyo markaa dabeetana wixii sida ansax ku ah komishanka uu ku dhawaaqo si aan u dhicin hebel baa wax ka maqnaayeen totalku sidan u ahayn ee la isla hubiyo dhinac markaa hooldan waxa fadhiya inamadii IT-ga ahaa ee xisaabta matalayay oo ah laba inan ama 3 inan iyo hablanuhu ku jiraan oo kombiyuutarradoodii wata waxa laala wixii daatooyinkii aan hore u saxeexnay ee warehouse-ka lagu tirinay ka soo gudbay sidaan in sheegay foomamkaasina waa loo gudbiyo u yaalan marka komishineerkii halkan qaabilsanaa isla markaana gudoomiye ku xigeenka komishanka qaranka iyo inamadii IT-ga baa dhex fadhiya hal baa sidaa la isla saxaya meel fiican oo maraysa imika waxa lagu jira imika daatadii Hargeysa waxa laala wixii Hargeysa ay xukumaysay kuma jiraan degmooyinka doorashooyinka ama salaxle ama balad ama gabilay ee kale xukumaysay ayaa dibadii la dhameeyay 26 June baa imika gacanta lagu hayaa deetana gacan libaax baa ku xigta deetana caawa marnaba laguma dhawaaqi karo maxamuud ay baa hadhay gacan libaax baa hadhay waxa weeye caawa markaa waqtigan ugu talagalay ilaa 12 markay gaadho ayaa dee la joojinaya subaxnimada marka waxaan idin sheegayaa waxaad moodaa inay dadku raagsaneen shaqada si fiican u socoto loo wadayo la dhameystiraya si aan cidna shaki u gelin dhawaaquna wuxuu dhici doonaa insha Allah ilaahay isagoo qofkii cidii uu qadaray ay heli doonto oon cidna cid waxba ka qaadaynin cidna cid ka shakeenin axsaabtuna ku kalsoontahay sidii loogu talagalay in lagu dhawaaqo barito duhurka horteed subaxnimadana inta hadhay aanu dhameystirno waxa hadhay baarlamankii waxa noo dhan salaxle way timid balagoodana way timid oo goobo doorashooyin degmo ah waxaan yimidaan idin sheegayo maxay wakiiladii looga codeeyay gabilay iyo salaxle sanduuqdii waa noo kan way noo yaalaan waa wax aad fudud oo markaa la dhameeyay waxa dhiman gabilay sanduuqu u dambeeyay caawa la dhameynaya barintay ku dhawaaqayaan iyaguna marka inta ku dhawaaqaan waxay noo soo dirayaan wakiiladii resultkoodii iyagana markaa gurihii wakiiladuna sidaas laga yaabaa isla bari tabagelinka dambaba in toos lagu dhawaaqo laakiin waxa shuura hawshaasi lagu talagalay gobolka Maroodijeex haday degmooyinkii tahay waad ogtiin oo laba waa lagu dhawaaqay tii gabilaha haday tahay iyo tii Hargeysa deegaanka iyo haday tahay golayaashii baarlamankaba in barita ay saa ku gabagaboyn doon hadii la hayraado waxaan leeyahay dadka nabad ku seexda nabad ku soo toosa kalsooni ku qaba komishankiina dawladdiina iyo qarannimadeedu ku qaba cadawba in eeganayo oo doonaya in la yiraahdo waa la iskhilaafay waa la isku qabsaday doorasho way dhici weyday waxa soo dhan waxba kama jiraan marka cadawii waynu jabinay nabad ku seexdo nabad ku soo toosa waxa laala wax inaga xumina ma jiraan shaydaanka iska naa'uudu billahi min ash-shaytaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dabcan way kala horeyn karaan oo golaha deegaanka waxa lagu dhawaaqi karaa duhurka
golaha baarlamankana waxa khasab noqon doonta in lagu dhawaaqo casarkiiyo wixii ka dambeeya waayo way fudud wax fudud weeyaan natiijooyinkan hordhac soo baxay been abuurkayga maxaa dadka fariin wax allaale wax ka jira ma jiraan waa min awaal aniga oo jooga eedade waxa weeyaan natiijada meesha ku qoran aan arkayo waa xaraan inaan sii sheego hordhac ku sameeyo si ay oo dadku warsay doonayaan waayo axsaabta isku laafaysa kaasina saasuulkaasina waa mamnuuc marka ay dhamaato eenu aragno cid walba wixii ay haysato iminkana cid walba wixii way ogtay markaasuma sharciyan lagu dhawaaqaya sanduuqda ugu dambeeya ee hadda gacanta lagu hayo tirada inay tahay bulshada la wadaagi karaysa waaba dhowr iyo konton sanduuq oo waliba ilaa 10 iminka baxeen ayaaba gabi 40 noo harsan dhowr iyo 40 sanduuq gabigooda inoo harsan demayo gacnibaax iyo juun iyo maxamuud haybada waa Hargaysa waad garanaysaa daaqilkii waxaan idin horreysiyay dibadii Hargaysa wala dhameystiray gudihii Hargaysa la bilaabo lixda jubayn lagu dhex jiray mudane Ismaciil Aadan Cismaan maxaa dhibaato ku jira degmada kaliya hadhay inay tahay degmada gabilay iyadoo gabilayna ka mid ah gobolka Muruqjeex wali laguma dhawaaqin iyada systemkii oo dhan guriyada deegaanka maxaa caqabad ka taagan markii hore waxay ahayd daraartii hore doorad shalay markan booqanayo waxa weey cilad baa gashay kombiyuutarada hadda jeer technical baa u dhaca markaaba qole IT loo diraa qolada IT loo diraa baa samaysay komishanka laftiisa tagay oo soo booqday annaguna xisbi ahaan baan tagnay inaan soo eegno kalsooni baan ku qornay haddaan saddex xisbi qaran barnahay wax dhibo ka taagan ma jirto waana ku faraxsanahay aad iyo aad baan u hambalyeynaa nidaamku sidoo socdo wax dhileeyna ma jiraan cidii ka caban leedahay wax ka sheegi leedahay axsaabtuna ku faraxsantay idinku markaa maxaad ka doonaysaa in balaa dhacdo maya way Ismaciil soo sheekeydinaya waxa weeye natiijooyinka ilaa ay hadda hesheen xisbi ahaan golaha wakiilada iyo deegaanada leeyahay xisbi ahaan sidoo waa xisbi ahaan wadani ah xisbi ahaan wadani hadda dalku dhan qiyaasto waxaan u arkaa guul weyn hadda golaha deegaanka tayo golaha baarlamaanka tayo marka xisbi ahaan ay noo tahay annaga wadan haddaan guul weyn oo lama filaana ayaanu rajaynaynaa haddii la yiraahdo waayo dhulka kaloona waa lagu dhawaaqay waxa dhimanna waad garan karaysaan waxa weeyaan Hargaysa ayuun baa dhiman oo gobolka Muruqjeexa taana waxaan rajadayaduna rajo aad u sarreysay weeyaan haddaad xisbi ahaan gaari weydiisay marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay hawlo soo socdaan